xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya isla markaana ku midoobay kudlada Dhambaal oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiis beenaadkii magaalada Addis Ababa ku dhexmaray maamulka Somaliland iyo dowladda Itoobiya waxaana xildhibaanadan kulankooda kadib bayaan ay soo saareen warbaahinta u akhriyay xildhibaan Maxamed Axmed Beere oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka isla markaana gudoomiyaha kudlada Dhambaal jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya kudlada Dhambaal ujeedo bayaan ku aadan isafgarad ku sheega sharci darrada ah ee Addis Ababa 1 Janaayo 2024 kudlada Dhambaal oo ay ku mideysan yihiin xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya una taagan ka shaqaynta danaha guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Janaayo 2024 soo saaray bayaan ku aadan heshiis ku sheega sharci darrada ah ee Addis Ababa ku dhexmaray maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda Itoobiya oo ra'iisul wasaare ka yahay Abiy Ahmed Cali kudlada Dhambaal oo ogsoon taariikhdii hore ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya taas oo ku suntanayd colaad soo jiitantay muddo dheer ilaa qarnigii 15aad xilligii Imaam Axmed Ibraahim Axmed Gurey dagaaladii daraawiishta kii 1964 kii 1977 iyo waxyaabihii ka dhashay oo dhaawac dhimasho iyo burbur baaxad leh u geystay labada dal waxaa la islahaa sanadihii dambe in laga gudbayo taariikhdaas madow hase yeeshee waxaa nasiib darro ah in hadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya si bareer ah ugu xadgudbo madax bannaanida midnimada iyo dhulka Soomaaliya isagoo jabiyay xeerarka caalamiga ah ee dawladaha u dhaxeeya kudlada Dhambaal waxay si adag u cambaareynaysaa tallaabada xadgudubka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee uu Abiy Ahmed heshiis beenaadka ama isafgarad beenaadka kula saxiixday Muuse Biixi isaga oo ogsoon in maamulka Somaliland uusan awood u lahayn inuu galo heshiis heerkaas oo kala ah kudlada Dhambaal waxay cadeynaysaa in aan marnaba Soomaaliya ogolaan doonin qaadashada taako ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliyeed kudlada Dhambaal waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Itoobiya in ay ka joogsato tallaabadaas guracan ee xadgudubka ku ah gobonnimada iyo geyiga ummadda Soomaaliyeed kuna soo laabato xayndaabka shuruucda caalamiga ah iyo kuwa gobolka sidoo kale kudlada Dhambaal waxay ugu baaqaysaa dowladda Itoobiya inay dhowrto deris wanaagga nabad ku wada noolaanshiyaha iyo iskaashiga geeska Afrika kudladu waxay bogaadinaysaa go'aankii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee soo baxay 2 January 2024 iyo sharcigii burinta heshiis beenaadka ee baarlamaanka labadiisa aqal soo saareen 2 Janaayo 2024 madaxweynuhuna xeer madaxweyne ku soo saaray 6 January 2024 iyo qayla dhaantii ummadda Soomaaliyeed ku cabireen dareenkooda ku aadan heshiiskaas xaaraanta ah waxayna kudladu ku baaqaysaa in la dhaqan geliyo go'aamadaas iyo shuruucdaas la soo saaray ugu dambeyn kudladu waxay u mahad celinaysaa dowladihii iyo ururadii caalamiga ahaa ee ka hadlay heshiiskaas
heshiis beenaadkaas sharci darrada ah Soomaaliyana garab istaagay ama Soomaaliya garab istaaga u muujiyay kuwa ilaa hadda aan aamusanna waxay ugu baaqaysaa inay mowqifkooda cadeeyaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay sii wadaan banaanbaxyada iyo cabiridda ra'yigooda ku aadan diidmada daandaansigaas qayaxan. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.